aan lagu daqdinin ceeb maaha inanta haddaanad nafsiyan ku kalsoonayn oo lagu dhaha waa lagu siiyey inaad tidhaahdo uga mahad celisid qasab maaha inaad guursataa inkastoo dhaqankeena laga yaabo soomaalidu inay ku qabsato cagsiguna ceeb maaha inantu inay ku tidhaahdo wal raalli ahawna ceeb maaha soomaalida dhaqankeeda qaar ka midna waxaa laga yaabaa inuu aad u argagaxo hadday gabadhi maya tidhahdo waa caadi saadaadba xor u tahay iyana xor u tahay walidalika in la isku qasbo maaha inkastoo aan ogahay fuqahaa u shaaficiya qayb ka midii inay inanta yar rumaysan yihiin in la qasbo oo dhaqankii soomaaliyeedna ay dhici jirtay lakin waxay leenahay axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam ee asaxday ra'yigaa way khilaafsantay in la qasbana maaha waayo haddii gurigu marka hore qasab ku dhismo yaa ilaalinaya barru iska dumayahay waxaanaynu rabnaa waa inaynu bulsho iyo dad muslima oo dhaqan soo saarno saa daraaddeed waa laga habooyay inaynu jujuub marka hore ku dhisno haddaad jujuub ku dhisto adigu waad dhistay yaa ilaalinaya berrito haddii reerka isfahmi waayo ama wada joogi kari waayo ama dhibtu ay sii badato waxaa habboon inaan ragga iyo dumarka midnaba la qasbin ee xurriyat likhtiyaar walidalik buu xadiidkii saxiixa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waatii gabadhii ansaariyadda ahayd uu aabaheed baa siiyey nin inana ilmaadeer ahaayeen dabeetana way diido nabigaa u sheegtay calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxay tidhi aabbahay baa nini siiyey oo weliba wuxuu doonayaa bay tidhi inuu inanku adeerka u yahay yani waa inan aan mujtamacu qaadanayn inuu aniga igu socodsiiyo ayay ku tidhi khasiisata bni cami buu rabaa inuu aniga kor igu qaado ilaahay rasuulkiisiiyo ma doonaysaa buu yidhi may bay tidhi waa diiday gabadhii wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay inaan gabadha la qasbi karaynin kadib bay waxay tidhi aabbahay siduu yeelay bay tidhi waan socodsiiyey in adeerka inaan iska guursado waan aqbalay bay tidhi laakiin waxaan rabay bay tidhi inaan dumarka baro inaan ragga lagu qasbi karin masaladan un baan rabay bay leedahay inaan muujiye laakiin aabbahay taladiisa diini maayo waan yeelay yani gabadha muslimadii inta badan aabaheed way ka dambaysaa aabbuhuna wax fudud maaha iyo hooyadu taacadoodu wax fudud maaha saa daraaddeed in dhallinyaradu ay aada u qiimeeyaan waalidkood iyo taacadooda meesha ku jirta gabadha muslimadii waxay leedahay waan ateecay aabbahay wixii uu sheegayay waan fulinaya laakiin wuxuun baan rabay inaan baro dadka inaan dumarka la qasbi karin oo ciddii la doono lagu qasbi karin idan gurigu inuu qasab ku dhismo laga fiican walidalik waxaan leenahay waa inuu jiraa usus gabadha lagu dooranaya ninka waa inuu ku dhisnaadaa xorriyat likhtiyaar waa inay jirtaa muraacaati takaafu inay dadku isu cuntamaan isu cuntanka goormay dadku mutakaafi isu yihiin alaslu waa diin iyo dhaqan qabiil iyo cilmi iyo lacag iyo wax kaloo dadku ku kala sarrayn karaa ma jiro alasl dadku waxa uu isugu cuntamaa waa maxay waa diin iyo dhaqan walidalik baa waxaynu ka garan karnaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebigu qaar ka mida sidii isugu guuriyey kuwo madooba ama addoomma ahaa ama mawaali ahaa in hablo quraysheed oo sarsarreeyo loo guuriyey kuwo tabani lagu haystay inuu hablo quraysheed oo kuwii ugu fiicnaaya loo guuriyey idan kullu dalik waxay ku tusinaysaa asalku inuu yahay uun diin usama ka mida mawla xudayfa baa ka mida miqdaad ibnu laswad baa ka mida oo aswadkan uu yahay odaygii tabaniga ku sheegan jiray muqdaad ibnu camri waxa ka yani saxaabo badan inuu takaafu uu jiro waayo dadku haddaanu mutakaafi isu ahayn yani haddaanu labada qof isu hiloobaynin noloshu inay sii waartaa way dhib badnaan kartaa tan takaafuha marka aan sheegayo ugama jeedo inay shartun liziwaaj tahay wixii kaa ka hadha yani gabadha muslimadda uma banaana inuu guursato nin gaaleed gabadha iyo ninka muslimkaana akhlaaqda iyo diintay mutakaafi isugu yihin laakiin waxaa jira min ataxsiinaat waxyaabo sii qurxiya guurka oo ah dadku inuu dad isfahmi kara uu yahay haddii laba qof oo nolosha waxyaaba badan ee dadku mujtamacaadku isku qiimeeyo ama culture ha noqoto ama da ha noqoto ama cilmi ha noqoto ama waxa aada ugu kala fog ay noqdaan labada qof oo aanay noqoninna markaa laba iyagu israbay aanay noqonin way dhib badan tahay inay nolosha si fiican ay u wadaagi karaan idan takaafu waa in badan la ilaaliyaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nolosha fudaydiya ee inuu guurkani sii waaro reerkani sii jiro waxyaabaha fudaydiya ayay ka mid tahay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam
saxaabigii yaraaye jaabir ibnu cabdillahi markuu guursaday wuxuu nabigu ku yidhi yaad guursato wuxuu yidhi gabadh tayiba hallaa bikran tulaacibuhaa buu nabigu ku yidhi omaad inan yaroo ad la cayaarta guursatid buu ku yidhi isagoo ninkan shaabka ee dhallinyaradaa nebigu eegaya calayhi salaatu wasalaam iyo ciddu mutakaafi'a la aha laakiin dantiisuu sheegtay jaabir ibnu cabdillahina wuxu yidhi ya rasuula allah 8 hablood baan la walaalaho inan kaloo la cayaarta ma rabee qof weyn oo ii tarbiyeeyo hayaan rabaa buu ku yidhi yani dantu u guursaday buu ka warramay oo ah inaanu cayaar kale u baahnayn in carruur 8 buu hayaaye inuu rabo 8dan cid la koriso oo la wado oo qof caqli iyo miisaan le inuu yahay waxaynu uga jeednaa shardi maaha yani qofku ama sayib ha ahaado ama kan ahaado ciddii la doono la guursan karaa laakiin waxay tilmaamaysaa takaafu inuu ka mid yahay waxyaabaha fiicnaysiiya guurku inuu sii hagaago